ma tahay qof xaasla ah ama horay guur u soo maray ama ma tahay qof doonaya in hadda uu guursado haddaba walaalayaal waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in furiinku uu yahay shay xalaal ah haddana uu ilaahay aad u neceb yahay waxyaabaha ugu badan ee keena furiinka waxaa ka mid ah xanaaqa haddaba waxaan kula wadaagayaa qiso yar oo cajiib ah isla markaana caqli qaadasho mudan nin ayaa hadda ka hor waxa uu nambarka xaaskiisa ku seefgaraystay dardaarankii rasuulka sallallahu calayhi wasallam beddelkii uu magaca xaaskiisa ku qoran lahaa muddo kadib ayay xaaskiisii aragtay waxaana ay dhahday maxaad ugu qortay magacan waxa uu yidhi waxaan rabaa markii aad isoo wacdo aniga oo xanaaqsan inaan xasuusto nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo dardaarankiisii iyo inaan xasuusto xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ha xanaaqin ama ha caroon oo uu ku celceliyay nabiga sallallahu calayhi wasallam 3 jeer markii nin uu yidhi iyo dardaaran rasuulkii allow haddaba qisadan waxyaabaha laga qaadan karo waxaa ka mid ah in wax walba oo aad caqli u adeegsato ay ku toosayaan waana marka la yiraahdo la kala tag orod ma aha saaxiibada sharafta leh ee ku xiran bartan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan barta YouTube-ka ee walaalka show waxaan idinku soo gudbin doonaa sheekooyin waxtar u leh bulshada iyo kuwa iska maad ah saaxiibayaal adinkuna inagu dhiirigeliya like-ta share-ta iyo subscribe-ta mahadsanidin